asxaabta nagu xiran saa arkaysaan abka jom stag waxaan sameyn doonaa live withdraw ayaan sameyn doonaa. qiimaha hadda ku jirto waxaa waaye 29 senti waaye. si live ayaan ula bixi doonaa, waxaana kula bixi doonaa by Trust Wallet. haddii aan hadda tagno Trust Wallet keena Jombi tokenka saa arkaysaan waa zero, wax data oo lacag oo kusoo dhacdayna mala. isla markiiba waxaan ku tusaa lacagta inay isla markiiba hore kasoo dhacdo. calaamadda ugu horeysa waxaan taabanaa withdraw button ayaan taabanaa. kabacdina waxaan sii dhahayaa qaybtaas description ku goosanaa intaas qiimahaas hoose ayaa soo gaaray 0.08196 withdraw ayaan taabanayaa. saa arkaysaan transfer is in progress ayuu leeyahay. sida arkaysaan transactionkiina waa kaasa soo gaaray. saa arkaysaan 0.0899 aad arkaysaan. waxaan tegaynaa Trust Wallet-ka saa idin tuso. okay, saa arkaysaan waxay soo gaartay 21 senti ayaa soo gaartay. waxaa iga go'day 8 senti ayaa iga go'day. okay, abka aan isticmaalayo iyo sida aan barnaamijka oo dhan ayaan videoga insha Allah kula wadaagi doonaa. marka ugu horeysa waxaan ka bilaabay withdraw anigoo sameynaa si aad u aragtaan. soo marka abka Sweet Gain waxaad ka sameyn kartaa ayadoo la isticmaalayo Jombi Task Wallet. waxaad kala bixi kartaa minimum lacagta ugu yar 20 senti ugu yartaa ee la bixi kartaa. hadda saa arkaysaan awal waxaan naqaanay Honey Gain ka caadiga ah ayaan naqaanay, laakiin ay asaga wuxuu nagu xijeynayay in aan marka u horeyso in aan haysano minimumka inaan $20 lacagteen ay gaarto. laakiin Jombi Task ayaa wuxuu inoo sahlay inaan lacagta cryptocurrency aan la baxno minimumka ugu yarna 20 senti inaan la baxno anagoo adeegsanayno Trust Wallet-ka. haddaba sideen qaabkaas ku sameeyay insha Allah videoga qaybtiisa dambe ayaa faahfaahin dhameystiran idinku siin doonaa sida qaabka uu waxayn doono insha Allah. marka baalkan waxay ku xiran tahay hadba wuxuu isticmaali doonaa kaliya bas waxaad u fureysaa internetka oo mobilkaaga ayaa u fureysaa. markaad soo download gareysato steebyada aan sameyn doono aad sameyso kadibna maalintii waxaad ka sameyn kartaa $1 ilaa $5 ilaa sentiyaal hadba waxay ku xiran tahay taleefankaaga awoodiisa. waa kow aniga hadda taleefankayga maadaama uu GB-giisa iyo barnaamijyo badan aan ku isticmaalayo taas ayaa waxaa keentay sida hadda arkaysaanba your network is overused uu ilaahay mar walbeeto marmarka qaarkoodna uu fiican yahay. taas ayaa waxay keenaysaa in lacagta faa'iidada aan sameyn lahaa ay mar walba ay xoogaa ka yaraato qiimaheedii. laakiin waxaan aaminsanahay haddii taleefankaaga aa u isticmaashid baalkii uu GB badan uu leeyahay oo spacekiisa uu weyn yahay sidoo kaleento internetkaagana uu connectionkiisa very high yahay oo aadan isticmaalaynin. waliba aniga hadda waxaan isticmaalayo internet mobile. haddii aad isticmaalayso daatada oo guryaha lasoo dhigto kaleento receiverka hadda kaas isticmaalayso oo taleefanka internetka taleefanka waxay kasii speed badnaan doontaa insha Allah. videoga insha Allah waxaan sameyn doonaa account cusub ayaan sameyn doonaa insha Allah step by step ila socda insha Allah. wax yar laga yaabaa inuu videoga dheeraado insha Allah. videoga like noo saara sidoo kale channelka subscribe noo saara haddii aad ku cusub tahay. qaybta kale ayaan u gudbaynaa insha Allah tacaala oo aan ku waxayn doono sida Honey Gain loo soo dejisto, sida loogu rakibo Trust Wallet-ka kadibna loo howl bilaabo. si aad iska diiwaangelisay step koowaad aad ka bilaabayso waxa waaye in aad imaato account-keena oo telegram channel-keena inaad imaato. sidoo kale telegram channel-keena waxaa ka heli doontaa videogan aad daawanayso YouTube-ka qaybta hoose linkiga description-ka kadibna channelka subscribe noo saar telegram-ka si aad ula socoto wax walba update aan soo dhigno. okay, step koowaad waxaan ka bilaabaynaa inaan linkigan inaan ku dhufano ayaan ka bilaabaynaa step koowaad si aan isku diiwaan gelino kabacdi just on si aan leenahay. marka ugu horeyso isdiiwaan gelinaysa markiiba waxaad heli doontaa $5 ayaa heli doontaa oo kugu darsoomi doonto rasiidkaaga kugu darsoomi doonto. dabcan $5 maaha lacag markiiba aad la bixi doonto, laakiin waa $5 oo gift ahaan ay shirkadda ku siisay. abka Honey Gain sidaan ku naqaanay marka hore $5 ayay ku siinayaan. waxay kaaga baahan yihiin inaad $15 oo kaleenta aad shaqayso si aad marka $20 aad gaarto aad lacagta oo la baxdo. marka
dabcan qofka waxaa laga yaabaa in marka u horeyso haddii uu waayo lacag uu markiiba ula bixi karo xoogaa in ay ku yar adkaato barnaamijka maadaama uusan fahamsaneyn iyo systemka qaabka u shaqeeyo. Sidoo kaleeto haddii internetkaaga uu daciif yahay iyo sidoo kaleeto haddii maxay ahayd taleefankaaga gb-giisa uu yar yahay waxay keeni kartaa in faa'iidadii aad helaysa ay aada u yaraataa. soo marka appka Jomby Task wuxuu inoo saqiray, inoo sahlay in anagu Honeygen isticmaalayno taleefankana. waxa kaliya uu kaaga baahan yahay Honeygen waxa waa kaliya in aad account ka samaysato kadibna taleefankaaga connect gareyso wuxuu isticmaali doonaa datadaada internetka. mar walbo internetka aad online ka ahaato 24 saacada more lacag badan aad ka samayso. kadibna minimumka lacagta ugu yar aad la bixi karto as cryptocurrency ahaan lacagta Jomby token la yiraahdo waa 20 senti sida aad videoga qaybta hore aad ka arkayseen anigoo withdraw markiiba sameynay insha Allah. Okay, register ayaan ku dhufanaynaa stepka koobaad. maadaama uu taleefankeyga xifdisan yahay errorkaas ii soo baxday. kadibna waxay hore ka fahmeen daatadeeda in aniga qofkii hore aan ahay maadaama aan referral linkeyga isticmaalayo. laakiin waxaan isku dayi doonaa insha Allah inaan link kale isticmaalo saa intuusa qaabka diiwaangelinta. okay, wajahada koowaad markii aad ku dhufato claim $5 isla markiiba dhowr option ayaa ku furan si aad isku diiwaangeliso. stepka koowaad waxaa waaye inaad dhahdo continue with Google ama continue with Facebook. account-kaaga Facebook caadiga ah inaad ku samaysato ama Gmail-ka inaad ku samaysato ama si caadi ah inaad isku diiwaangeliso. stepka koowaad marka waxaa noo sahlan oo noo saqiran oo u fudud oon samayn karnaa inaan continue with Google aan dhahno kadibna Gmail-ladeena mid ka mid ah aan okay ku dhahno maadaama taleefankeena uu dhowr xabo Gmail uu ku samaysan yahay dabcan sidaan aniga ah oo kaleento. haddii aad tahay continue leedahay kadib by email aan weydiiyay adi laakiin waxaa laga yaabaa inuu kuu soo baxdo listiga emailada oo dhan. aniga laakiin ama saanu kugu soo bixi karaa ama sida kale kugu soo bixi doonaa. kadibna passwordkaan gelina kadibna next ayaan dhahaa. saa arkaysaan passwordkaan geliyay kadibna continue ayuu dhahay. kadib wuxuu ku weydiinayaa in aad download aad ku samayso for Android-ka oo aad soo dejisato appka inaad soo dejisato. waa ku dhufanaysaa kadibna as a zip file ahaan ayuu usoo degi doonaa insha Allah. kadibna markuu soo dhamaystirmo file downloaded open ayaad ku dhufanaysaa. kadib taleefankaaga hadduusan aqoonsaneen settingga tagaysaa waa u furaysaa. kadib install ayaa leedahay. kadibna wuu dhamaystirmay open ayaa leedahay. kadib I agree ayaa leedahay ayuu kuu sheegayaa. kadib halkaan markaa imaato mobile data ma isticmaalaysaa mise maya. haddii aad isticmaalayso mobile data waxaa leedahay yes. haddaa rabto mobile data limit ayaa siin kartaa inta GB oo siinayso laakiin unlimited ka dhigta ayaa fiican si mar walbeeto. sidoo kale wuxuu ku dhihi doonaa optimize ku sameey allow ayaa leedahay waa u furaysaa. kadibna balancega ayuu ku xumaan. saa arkaysaan hadda aniga waxba la ima siinin maadaama taleefankeyga ay aqoonsan yihiin oo linkigeygii aan ku soo galay. saas darteeda $5 oo ahaa 5,000 ayay marka hore ku siinayaan oo u dhiganto $5 u dhiganto. kadibna wixii aad samaysay kadib ayay saasay kugu sii socon doontaa lacagta. kadib login inaan sameeyo ayuu weydiiyey. login ayaan sameynaa emailka iyo passwordka ayaan gelinaya aan ku samaystay kadibna login ayaan dhahayaa.
sign in ayaan dhahay maadaama aan email iyo password aan ku samaysan automatic ayaan u galay maadaama aan emailkayga ku galay kadibna sign with google ayaan dhahay kadib toos ayuu u galay home ayaan imaan doonaa okay meesha muhiimadda meeshaan waaye hadda meeshaan lacagta waxay tahay honeygain ayay tahay oo ah midii $20 minimumka ugu yaraa ayay tahay marka waan ka bedelaynaa fallaarta ayaan dhinaca kaleenta aan geynaynaa kadib wuxuu i weydiinayaa in aan ku link gareeyo wallet inaan ku link gareeyo weydiinayaa si hadhowti markii lacagta minimumka ii gaarto 20 senti ii gaarto sidii videoga bilowgiisa aan sameynayo kale toos baan hal mar waxaan u dhihi doonaa withdraw ayaan dhihi doonaa kadibna toos ay lacagta ugu dhici doontaa baalkii marka trust wallet kale oo aan ahayn kii hore aan u samaystay ayaan soo qaadan doonaa kadibna waan ku link gareyn doonaa saa arkaysaan kan maadaama uu yahay kii marka hore inta aan ku samaystay settingiga ayaan tegayaa walletyadeeda mid ka mid ah oo kaleento ayaan ku samaysanayaa jambi token ayaan dhahayaa kadibna waan furayaa okay kadib waan kusoo laabanaa linki wallet ayaan leeyahay because waa ii furan yahay trust walletka midkii uu markaas uu ku furan yahay ayuu toos ugu connect gareysmayaa kadibna waxaan dhahaa connect ayaan leeyahay kadib waxaa la ii soo diray code 6 xabo ka kooban oo la igu soo diray emailka aan isku diiwaangeliyey codekaas 6 xabo ayaan soo qaadanaa kadibna waan gelinayaa saa arkaysaan codeki waa kanaa waxaan tagay gmailkayga ayaan tagay aan ku samaystay honeygain kadibna koodkan ayaan soo koobi karaysanaa oo soo qaadanaa kadibna waxaan kusoo laabanaa asagii 6dii koodka ahaa ayaan gelinayaa oo la ii soo diray kadibna verify ayaan leeyahay latest jambi taska ayaan leeyahay kabacdi sidaas ayuu igu connect garaysmay kadib wixii oo sidaas ayuu taleefankaaga ugu connect garaysmay halkan koreentana waxa kuu soo bixi doonto halkan korena waxa kuu soo bixi doonto sida hadda arkaysa aniga your network is overused ayuu leeyahay sidaas darteed daatada badan ma u isticmaalayo waa in aan aniga abkayga daatada gb-gayga aan yareeyo oo spaceka taleefankayga si igu qaadmato marka kaliya bas wuxuu kaaga baahan yahay taleefankaaga inuu connect ku ahaado kadibna jambi taski websiteka ayaan tegi doonaa websiteka waa kana oo hadhowti withdrawga laga sameyn doono kadib wuxuu ku weydiin doonaa login inaad sameyso login si aad u sameyso wuxuu ku weydiin doonaa inaad ku connect garayso abkaaga hal marka u horeyso unbuu ku weydiin doonaa wixii markaas ka dambeeyo automatic ayuu u geli doonaa insha allah kadibna waad u fureysaa sign ayaad leedahay kaliya walletkaaga loo rabo inuu ku connect garaysmo marka waxaad isticmaashaa trust wallet aysan wax lacag ay kugu jirin waxbana aysan kugu jirin kaliya aa u isticmaalayso barnaamijkan aa u isticmaalayso kadib resign ayuu kuu soo diraa oo aan idinka hilmaamay resignkaas inaad haddana trust wallet ku laabato waa oo resign garayso kadibna markaas automatic ayuu kugu furmaa halkan ayay kugu soo bixi doontaa meesha dashboardka lacagtaada kadibna markii minimumka uu gaaro 20 cent meeshaas withdraw ayay ku dhufan doontaa
kadibna waad la bixi kartaa. Sidoo kaleeto Jumpy Task wuxuu leeyahay ovaries ayuu leeyahay, saa arkaysaan 177 ovaries ayuu leeyahay, oo ovarieskaas oo ah shaqooyin microtask ah. microtaskidaas sameynaysaa. sidoo kale by gameskaas ayaad soo download garaysanaysaa wixii iyo surveygaas ayaad ka shaqaynaysaa, kadibna lacaga dheeri ah oo Jumpy Task ayaad ka sameyn kartaa insha Allah. Videogan insha Allah intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. videoga like noo saar si dad badan uu gaaro. sidoo kale intana janaalka haddaa ku cusbeen kusoo biir. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.